qof kasta inaga mid ahi waxa uu jecel yahay inuu gaadho guul oo uu noqdo mid ka mid dhaliya waxa uu rabo inuu helo ama sameesha uu rabo inuu gaadho. waxaan halkaan idinkula wadaagi doonaa 6 qodob oo lafdhabar u ah hanashada guul kasta ee uu qof jecel yahay inuu gaadho. magacaygu waa cabdifatax isxaq, ku soo dhawaada kanaalka Nuuriye. qodobka koowaad, yeelo qorshe. qorshuhu waa marinka guusha. markaad ku socoto wadada guusha waxaad u baahan tahay inaad yeelato qorshe, inaad isweydiiso maxaan doonayaa inaan noqdo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. maxaan doonayaa inaan noqdo 1 sano hadda kadib ah, maxaan doonayaa inaan noqdo 5 sano hadda kadib ahay. arrinkani waxa uu kuu fududaynayaa inaadan noqon iska socdo, balse aad og tahay halka ama meesha aad u socoto. qorshuhu waxa uu kale ka caawinayaa inaad howlaha u qabato siday u kala mudan yihiin, una howlgasho sida ugu fudud uguna wax soo saarka badan leh. qorshe la'aantu waxay ku badaa dhabar adeeg iyo khasaare, mararka qaarkood kuu keeni karaa niyad jab aad ka soo kaban kari weydo. qodobka labaad, joogtaynta. joogtayntu waa waxa kala saara guulaystaha iyo guuldaraystayaasha. guulaystuhu markasta oo uu go'aan gaadho waxa uu ku dadaalaa inuu joogteeyo waxa uu go'aansaday inuu qabto ilaa uu ka midho dhaliyo, mana ogola inuu istaago maalin bilaa macne la'aan ah. halka guuldaraystayaasha marka ay isku dayaan inay wax qabtaan aanay sii joogteen ay ugu badnaan kaga hadhaan meel dhexe. qabo oo samey maalin walba waxa aad rabto inaad hesho. qodobka saddexaad, wax akhri. akhrisku waxa uu kobciyaa maanka. akhristaha maanta waa hogaamiyaha beritoole. wax akhrisku waxa uu qofka u saamaxaa inuu ka fikiro qorshihiisa, hamigiisa dhow iyo ka fogba. sidoo kale wuxuu qofka u horseedaa inuu siyaabo kala duwan ugu baarantago mushkiladaha soo food saara. sababta ayaa ah maskaxdii oo ballaaratay kadibna dhinacyo badan ayay wax ka eegaysaa. wuxuu sidoo kale dhisaa wax akhriska luuqadda iyo ereyga qofka ku hadlaya. xigmad ayaa dhahaysa reading increases the level of personal understanding, oo ay uga jeedaan wax akhrisku waxa uu kordhiyaa heerka fahamka shakhsiga. xigmaddani waxaynu ka qaadanaynaa in akhrisku kobciyo maanka akhristaha. haddaba wax badan akhri si aad wax badan u ogaatid. qodobka afaraad, samirka. arrimaha ugu waaweyn ee lagu gaaro guusha waa samirka, oo ah inaad adkaysi yeelato oo aanad degdegin. ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku yidhi samra oo dhabar adeega oo ilaahay ka baqa waad guulaysan doontaane. marka ilaahay guusha waxa uu ku xidhay waa sabir. waxaa kale oo ilaahay aayado fara badan kaga hadlay samirka, abaalkiisu inuu yahay janno iyo khayr. marka aan ka hadlayno horumarka maadiga ahna waa inaad ku samirto shaqada aad haysato ee aad ku hiigsanayso guusha. imise jeer ayaad isdhiibtay iyadoo ay guushu kaa xigtay samir? mise garanaysa dad intay waqti iyo maalba ku bixiyeen xaqiijinta hadafkooda kadibna isdhiibay samir la'aan darteed? samir la'aantu waa mid ka mid ah arrimaha keena guuldarrada, maxaa yeelay inta aanad guusha gaadhin waxaad la kulmaysaa dhibaatooyin iyo carqalado badan iyo arrimo kaa horjoogsada xaqiijinta himiladaada. haddii marka aanad ahayn mid samir u saaxiiba kama gudbi kartid dhibaatooyinkaas. si kasta ay xaaladdu u adkaato carqaladuhuna ku soo wajahan, u samir. inaad samirtaa waxay ku dhaxalsiinaysaa inaadan rajo dhigin oo aad socoto ilaa aad ka gaadhayso amase aad helayso waxa aad rabto. qodobka shanaad, dhiirageli naftaada. dhiiragalintu waa shidaal qof kasta u baahan yahay. waxaa jira waqtiyo adag ee qofka soo wajaha oo uu dareemo welwel iyo walbahaar. xilliyadaas oo kale waxaa lama huraan ah qofka inuu helo qof dhiirageliya ama inuu dhegaysto muuqaalada dhiiragalinta ah, horeyna u riixaya. dhegayso muuqaalada ku dhiirageliya. mar walba daawo waxyaabaha niyaddaada dhisaya. xitaa waa inaad adiga isdhiirageliso. naftaada u sheegto inay wax walba ay awooddo, inay isbeddel samayn karto, inaysan ahayn sidii wakhtigii hore, inay tahay naftaada mid wax soo kordhin karta. waxaaba laga yaabaa inaad samayn karto waxa ay sameeyeen wax ka wanaagsan. keliya lagaaga baahan yahay dadaal iyo aaminaad inaad la timaado.
qodobkani waa midka ugu muhiimsan. qodobka lixaad ilaahay tala saaro. inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saarato howlahaaga adduun iyo kuwaaga aakhiraba waxay ku sahlaysaa inaad noqoto qof mar walba ku xidhan ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisa oo dhan, aaminsanna inuu ilaahay yahay kan noloshiisa gebi ahaanteeda gacanta ku haya. sidoo kale inaad ilaahay tala saarto waxay kaa dhigaysaa mid gurgaadha noloshan iyo tan dambeba. ilaahay baa qur-aanka inoo sheegay in qofkii tala saarta uu ku filnaan doono kana dabooli doono baahiyihiisa oo dhan. wax walba waxay leeyihiin waddo loo maro loona raaco si loo helo loona hanto. qodobadaani haddii aad ugu dhaqanto sida ay yihiin una ilaaliso waad ka gungaadhi oo aad heli hankaaga iyo halkaad rabto inaad gaadho insha allah.